dhaaraya magaca ilaahay inaan xilkayga u gudto si daacada oo danta dalka dadka iyo diinta ku jirto horana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaalla. wasiirada waxay ku mahadsan yihiin soo jeedintii iyo soo xulistii saraakiishaan hogaaminaysa labadan ciidan ay soo propose gareeyeen cabinetkana ay geenu soo maray waa annaguna aan ku raacnay oo aan u aragnay inay tahay tallaabadii saxdeed. marka waxaan leeyahay taliyaasha ciidamada cusub xilkiina allah idin fududeeyo, dadaalkiina na waa loo baahan yahay. waxaa sidoo kale ayagana aan rabaa fursaddan inaan ayagana uu bogaadiyo o aan balceliyo taliyihii hore ciidanka asluubta soomaaliyeed jenaraal xuseen iyo kusimihii taliyihii ciidanka booliska soomaaliyeed marka taliyihii dhinta allah u naxariistay wixii ka dambeeyey ayaguna intii xilkaas ay hayeen runtii shaqo aad iyo aad u qurux badan oo dadaal badan oo dalka hore loogu dhaqaajinaya ay hayeen. ayaguna waxaan leenahay waa dadaasheen waana ku mahadsantihiin. taliyaasha cusubna waxaan leenahay xilkiina muxuu ahaay allah idin fududeeyo. dowladda soomaaliya wasiiraduna waaba raggii idiin soo gartay xilkan, xukuumadda inteeda kale iyo dhammaan annaga madaxweynahan waa idinla shaqaynaynaa. waan rajaynaynaa adeega amni iyo adeega cadaaladeed maxaanku yidhahday doorka ay leeyihiin ciidamada ciidanka booliska soomaaliyeed iyo ciidanka asluubta soomaaliyeed in aad muxuu ahay sii dardargelisaan meesha maanta uu joogo oo meel fiicanana aad horay uga sii dhigtaan haddii alla yidhaahdo. haddii garabkii aad u baahneed waad haysataan, sharciyaddeena waad haysataan. ciidanka iyo dalka iyo dadkana niman aad u yaqaano, dad ku cusub oo hadda shaqada bilaabaya maahidiin. ciidamada xaaladooda iyo dalka xaaladiisa iyo dadkeena kulli waad ogtihiin. marka dee dardargelin iyo barnaamij cusub iyo hor usii dhaqaajin meeshii raggii hore dadaalkii ay sameeyeen ay soo gaarsiiyeen in haddana tilaabo kale lagu sii daro hor loo sii dhaqaajaa laidinka filayaa.